dowladda federaalka iyo mucaaradka oo isku raacay dhowr qodob iyo meelaha ay weli isu khilaafsan yihiin. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo laba garab oo ka tirsan mucaaradka ayaa la sheegay inay gaareen isafgarad ku saabsan in dalka loo gudbiyo doorasho qof iyo cod ah kadib wadahadalo xasaasi ah ay garwadeen ka ahaayeen beesha caalamka. Sida ay sheegeen ilo ku dhow wadahadalada dhinacyadu waxay isku raaceen in Soomaaliya ay qabato doorasho toos ah oo ku saleysan nidaamka axsaabta siyaasadeed taas oo bedeli doonta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka looga dhaqmi jiray sanadihii la soo dhaafay. Xogaha la helay ayaa sidoo kale tilmaamaya in dhinacyadu isla qaateen in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo noqdo hay'ado mas'uul ka ah maamulka iyo qabashada doorashada iyadoo la raacayo hannaan sharciyad oo waafaqsan nidaamka doorashada ee qof iyo codka ah. Si kastaba ha ahaatee, golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa weli qaba aragti ka duwan tan ay wada gaareen dowladda federaalka iyo labada garab ee mucaaradka, inkastoo ay taageersan yihiin in dalka laga qabto doorasho dadweyne. Golahu wuxuu soo jeediyey in la qabto waxa uu ugu yeero doorasho qofaysan isla markaana la dhiso guddi doorasho oo laba heer ah kaas oo si wadajir ah uga qayb qaadanayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. Ilo wadayo ku dhow wadahadalada ayaa sheegay in qodobada weli lagu doodayo ay ka mid yihiin tirada goobaha lagu qabanayo doorashada, qaabka loo ilaalinayo nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 inta lagu jiro marxaladda kala guurka ah iyo arrimo kale oo farsamo oo la xiriira hirgelinta doorasho. Sida xogahaasi tilmaamayaan, qodobadan looma arko waxa la leeyahay kuwa caqabad weyn ku noqon kara heshiiska guud. Waxaa la filayaa in dhinacyadu ay gaaraan is-afgarad marka la soo gabagabeynayo wadahadalada socdo. Wadahadalada ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo saldhig u noqdo hannaanka doorashooyinka dalka xilli Soomaaliya ay isu diyaarinayso go'aano muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyiinta, dhismaha hay'adda dawliga ah iyo hirgelinta doorashooyin toos ah. Inkastoo ay weli jiraan aragtiyo kala duwanaansho ku saabsan qaabka loo dhisayo guddiga doorashada iyo habraacyada lagu maamulayo geedi socodka, haddana xogaha la helayo waxay muujinayaan in inta badan dhinacyada siyaasadeed ay isku raacsan yihiin mabda ah in Soomaaliya laga qabto doorasho qof iyo cod ah. bulshadeena waxaan u haynaa bishaaro. adiga ama qof ka mid ah qoyskaaga ma qabaa dhibaato dhinaca dhegaha, sanka ama cunaha? tani waa fursadeena. qaliinada dhegaha, sanka iyo cunaha ENT ee lacag la'aanta ah waxay si habsami leh ugu socdaan Albirri Hospital. dad badan ayaa durba ka faa'iideystay fursadan, adiguna wali waad ka faa'iideysan kartaa. qaliinadan lacag la'aanta ah waxay socon doonaan waqti kooban oo kaliya. soo booqo Albirri Hospital maanta, qabso balantaada, kana faa'iideyso fursadan ka hor inta aysan dhammaan. Albirri Hospital, adeega caafimaad oo lagu kalsoonaan karo.